aadman salaam ya saaxiibayaal meel kasta joogtaan halkan waa rashka turlo saaxiibada waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaal ku saabsan dabcan muxuu yahay dagaalka ka dhaxeeya ilka caase qays iyo waliba fanaanka daada yar oo iminkanba dabcan soo halan qaaday waa Sharma Boy weeyaane waxyaabaha isku heestaan ayaynu eegi doonaa ilaa xagee ayuu gaarsiisan yahay dagaalka iminkan markaasi curdanka ah ee u dhaxeeya ilka caase iyo waliba Sharma Boy run ahaantii sharaf uma aha ilka caase qays in markaasi iminkan uu heeso jawaaba u soo qaado ninka la yiraahdo Sharma Boy oo markaasi ah boqorka Muqdisho alalehe waa ka runtii arimahaas inuu eegi doona heeso cusub ayaa dabcan rajeynaya in toddobaadkan gudihiisa uu ku karbaasho ninka la yiraahdo Sharma Boy saaxiibkiisa ilka caase oo yahay sababaha isku dhaceen inuu eegi doona saaxiibada waxaan idinku codsanayaa in YouTube-kana rashka turlofano subscribe gareysaan sidoo kalena aad noo cizeysaan like-ta sidoo kalena share-ta aad nagu sharaftaan oo idinkana waan idinkaga mahad celin doonaa sida quruxda badan ee iminkan baa noo dhageysanaysaan ama noo daawanaysaan waayaha saaxiibayaal haddaynu ku bilaabno run ahaantii Sharma Boy waa nin fanaan Soomaaliyeed waa nin markaasi dabcan raabista ah wuxuuna dabcan caan ku yahay heesaha raabka ah oo hadan la fahmi karayo heesaha raabka qaarkood waa la fahmaa qaarkoodna ma la fahmo marka Sharma Boy heesiisa waa la fahmi karaya macnaha hadee boolo ana labeentooda dukaankaasi gasha ereyada uu ku heesayo ayaa ah mid markaasi aad iyo aad loo fahmayo ilka caase qays waliba isbarbardhig ayaynu sameyn doonaa ilka caase qays markuu soo caanbaxayay heesaha uu ku soo caanbaxay waliba Sharma Boy runtii Sharma Boy markuu soo caanbaxayay waa gunaanadka 2019 ilaa bisha September ilaa waliba bisha December kadib markii muuqaal oo dabcan uu soo saaray ninka la yiraahdo Ismaaciil Xaji waliba Super Ozil YouTube-ka madaanaha ka soo muuqday kadibna heesaha uu ku luuqeeyay waa kinkii CK kadibna oo heesaha si bedelay ama heesaha leer balay weeyaan kadib ayuu hees soo saaray ninka la yiraahdo Sharma Boy kadibna heestii Ahmalay ayuu bedelay oo wuxuu u bedelay Aaminata kadib ayaa dabcan waxa uu noqday shumac iftiina oo ifinaya bilicda Muqdisho waliba dhanka suugaanta magaalada Muqdisho markaasi dabcan markii loo eego waxa aad loo dhageysan jiray heesaha raabka oo ku luuqeeyo nin markaasi caan ka ah gudaha dalkeena Soomaaliya waa King Arash weeyaan kadib heeso macaan badan oo qaadi jiray laakiin muddo ay ka dansaneed King Arash kadib Sharma Boy ayaa dhisay heesaha raabka waayahay marka iminkan wuxuu ka mid yahay fanaaniinta raabistayaasha ah oo aadka loogu jecel yahay maadaama fanaaniinta dabcan raab ka qaacday ay badan yihiin ku badan yihiin gudaha Muqdisho haddana waxaa jira fanaaniin markaasi xifaaltamaya marka xifaaltamaya ka tahay dagaalka u dhaxeeya ilka caase qays iyo waliba Sharma Boy waa maya sababtay tahay ilka caase qays muddo 15 sano ka badan ayuu heesaya muddo 15 sano ka badan ayuu heesaya 2009 ayuu heesa qaaday sidoo kale fanaankan Nairobi ayuu ku soo caanbaxay heesa wuxuu qaadi jiray dabcan wadaniga heesa wuxuu qaadi jiray raaba xilliyada xataa telefoonada iminkan aynu heesano xilliga uu heesi jiray ilka caase qays ma aysan jirin telefoonada iminkan isticmaaleyno soo marka waxaa haboon in la isqadariyo la isqiimeeyo waxaa la yiraahdaa markasta waxaa haboon qofka markuu ka sareeyo inaad qiimeyso aad qadariso bal soo ceeb maaha ilka caasihii odayga ahaa oo boqorka raabka ahaa in Sharma Boy oo hal sano 2 sano jirsaday heesiisa ama hal sano iska daayay 2 sano u dhow yahay in markaasi isku soo jawaabaan waxa loo baahan yahay ilka caase in uu dabcan uu dulqaato aad iyo aad inuu dulqaato macna ayaa loo baahan yahay isla markaa Sharma Boy waxa uu soo wada heeso ku karbaashay ilka caase adduunka hadda joogto wax kasta waad arkaysaa dunida imikan aad saaran tahay hadda joogto wax kasta waad arkaysaa bal soo marka hees dhawaan uu qaaday oo dabcan ilka caase qays dadkii inta badan waxay leeyihiin wuxuu ku karbaashayaa ninka la yiraahdo Sharma Boy dabcan soo marka waxaa la yiraahdaa heesaha ku luuqeeyay ninka la yiraahdo Sharma Boy ayaa wuxuu noqonayaa toddobaadada soo socda mid karbaasha mid markaasi uu ku karbaashayo ninka la yiraahdo boqorka codka ama boqorka raabistayaasha run ahaantii barbardhig markii la sameeyana ilka caase waliba Sharma Boy ilka caase iminkan Muqdisho heesihiisa lagama dhageysto macna markii runta loo fiiriyo inta badan Sharma Boy ayaa ah shumac markaasi iftiimaya oo heesihiisana kal ilaa inta badan ay dhageystaan maanta hadii la yiraahdo keeba wanaagsan aniga ahaanteeda inkastoo ilka caase uu yahay dabcan boqorka raabka ah laakiin waxaan isleeyahay amay ilka caase uu wanaagsan yahay sababtay tahay
imikan casri ma aha adduunka micnaha aan iraade imikan casri baa la noqdayo adduunka dhanka micnaha aalada teknolojiyada oo kaleeto heer wanaagsan baa laga gaaray xilliga uu heesay xilliga uu raabka uu ku luuqay jiray ilka casiqiis waa la ogsoonaa soo ma memory ma lahayn casiradaha ayaa lagu duub jiray heesaha soo markaas waxa wanaagsan dadka markay horeeyaan dadka markay dambeeyaan markasto fanaaniintii horeeyaa wanaagsan soo marka xataa isku mid ma ahanba sababta tahay imise sano waa cunigan maxaa la yiraahdaayo Sharma Boy waa 16 ilaa 17 ilaa 18 ilaa iska dhe 20 jir weeyaan soo marka ninkan odaygan waa dhowr iyo 30 sano jir weeyaan marka waxaa haboon fanka xishmadu leeyahay fanka waxaa haboon xishmadu leeyahay run ahaantii hadda markii la yiraahdo Sharma Boy waa wanaagsan cid xaqiraysa ma laha laakiin markasta waxaa haboon la isqadariyo ninkii ka weyn ah hadaad dabcan kursiga aad ugu fadhido waa inaad kursiga u kacdo soo markaas way wanaagsan tahay kursiga inaad ugu kacdo qof markuu ka weeyahay inta badan fankan wuxuu leeyahay xaq dhowr wuxuu leeyahay fanka in la is ixtiraamo fanka wuxuu leeyahay in dabcan la kala dambeeyo kala dambeyn hadii si jirin ruuxanti ma haboona de sabaha marka kala dambeyn waa in la helaa Sharma Boy waa inuu xaalada dejiyaa sidoo kalena dabcan waxa la yiraahdaayo ninkii odayga boqorka codkana yalka casiqeysna war ninkaas odayga de xilli oo dabcan Sharma Boy inuu heesa u jawaabo ma lagu jire xilligan oo kale waxa loo baahay in odayga iska dhigo waxa la yiraahdaa guriga markuu dabcan dhalinyarada markay joogaan kan ugu weyn waa la qadariyaa macnaha soo marka boqor markii la yiraahdo ilaaha boqorahe laakiin markii la yiraahdo dhanka raabka waa lagu qadariyaa ninka la yiraahdo ilka casiqeys ixtiraamna la siisiyaa laakiin markasto inta badan Soomaalida waxay yiraahdaan marka adiga qof ixtiraamta ayaa lagu ixtiraamaya marka ninka la yiraahdo ilka casiq u dheysa waa inuu ixtiraam yeeshayo dabcan dadka ka yara oo dabcan fanaaniinta iminka soo hana qaadaya waa inuu ixtiraam yeeshaa soo marka muuqaalkan saaxiibada intan ayaa ku hakina ku soo gabagabeynaya kole 7 gudihiisa Sharma Boy la rajeynaya inuu hees markaasi uu soo qaado kadibna ku karbaajo laakiin kole xaaladan inay degtay ayaa rajeynaya saaxiibada waxaan idinka codsanayaa YouTube-ka Rashka True Love noo subscribe gareysaan sidoo kalena like tal nugu caawisan saaxiibada waxaa leeyahay